wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in faragelinta Imaaraadku ku hayo nidaamka siyaasadeed ee Mareykanka ay gaartay heer sirdoonka Imaaraadka ay jabsadaan qaar ka mid ah kombiyuutarada mas'uuliyiinta sarsare. Arrintan ayaa timid kadib markii wargeyska Mareykanka uu shaaca ka qaaday warbixin sir ah oo ay diyaariyeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka taas oo si faahfaahsan uga hadashay dadaalka ballaaran ee Imaaraadku ku doonayo inuu ku majaxaabiyo nidaamka siyaasadeed ee hadda maamula Mareykanka kaas oo dhinacyo badan uga soo horjeeda siyaasadaha Imaaraadka. Mareykanka ayaana in muddo ah Imaaraadku arkayay saaxiib la aamini karo oo la isku haleyn karo sida uu wargeysku sheegay. sida laga soo xigtay isla wargeyska dhaqdhaqaaqyada Imaaraadka ee warbixinta lagu xusay waxaa ka mid ah isku dayo sharci darro ah oo lagu doonayo in lagu hago siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku wajahan Imaaraadka. Washington Post waxa ay xustay in Imaaraadku in ka badan 154 milyan ku qarash gareeyay siyaasiyiin iyo saraakiil saameyn ku dhex leh maamulka Mareykanka tan iyo sanadkii 2016 sida laga soo xigtay diiwaanada waaxda cadaaladda. qoraaga John Hudson oo ka faaloonaya arrintan ayaa xusay in 3 qof oo aragtay warbixintan sirta ah ee ka dhanka ah Imaaraadka oo diiday in magacooda la xuso ay sheegeen in Imaaraadku ay xitaa dhaafeen ka faa'iideysiga iyo laaluushida kooxaha saameynta leh ee ku dhex jira nidaamka Mareykanka. mid ka mid ah faldambiyeedyadii ugu foosha xumaa sida uu qoray wargeyska Washington Post ayaa waxaa ka mid ahayd in Imaaraadku shaqaaleysiiyay 3 sarkaal oo hore uga tirsanaa sirdoonka iyo militariga Mareykanka si ay Imaaraadka Carabta uga caawiyaan la socodka iyo dabagalka dhaqdhaqaaqa dadka mucaaradsan, siyaasiyiinta, saxafiyiinta iyo shirkadaha Mareykanka. dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa sheegay in raggan ay Imaaraadka Carabta ka caawiyeen jebinta kombiyuutarada Mareykanka iyo dalal kale. warbixintu waxay ahayd tijaabo sirdoon oo gaar ah ayuu yiri Bruce Riedel oo ka tirsan macadka Brookings oo horey uga soo shaqeeyay golaha sirdoonka qaranka waana ninka soo ururiyay warbixintan xasaasiga ah. sidoo kale sida uu sheegay Riedel, Imaaraadku waxa uu doonayaa in uu noqdo dal awood ku leh dhanka jabsiga kombiyuutarada iyo internetka, awooddaasna uu adeegsaday si qaldan oo ay ku jirto in uu shaqaaleysiyo saraakiil hore oo Mareykan ah oo ku howlan howlo ilaalo ah oo ka dhan ah Mareykanka laftiisa. si uu u gaaro himilooyinkiisa Imaaraadku wuxuu adeegsaday 2 barnaamij oo wax lagu basaaso kuwaas oo kala ah barnaamijka Pegasus oo xiriir la leh shirkadda Israel ee NSO iyo mashruuca Raven. NSO Group waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna saameynta badan ee barnaamijyada wax lagu basaaso ee adduunka, gaar ahaan la socodka dhaqdhaqaaqa dadka isticmaala baraha bulshada. barnaamijkan ayaana dowladaha iyo mas'uuliyiinta sharci fulinta u ogolaada inay helaan xogta dadka isticmaala baraha bulshada ee bartilmaameedka u ah. bartamihii bishii September ee sanadkii hore 3 sarkaal oo hore oo lagu eedeeyay inay Imaaraadka gacan ku siiyeen u dhicitaanka xogaha dad ku sugan gudaha Mareykanka ayaa qirtay eedeymahan, waxayna kala yihiin 3daas qof: Mark Beer, Ryan Adams iyo Daniel Gerik, waxayna qayb ka ahaayeen unug sir ah oo la yiraahdo Project Raven oo ka caawiyay Imaaraadka basaasida shakhsiyaad iyo shirkado ku sugan Mareykanka. mashruuca Raven ayaa dowladaha isticmaala hay'adahooda sirdoonka wuxuu ka caawiyaa inay la socdaan xogta iyo dhaqdhaqaaqa saxafiyiinta, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka, dowladaha ay iska soo horjeedaan iyo mucaaradka. wargeyska ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyay in Imaaraadku sii waday shaqaaleysiinta saraakiil badan oo Mareykan ah bishii la soo dhaafay. Greg Whitlock iyo Nate Jones ayaa sheegay in 7 sano ee la soo dhaafay ku dhawaad 300 oo saraakiil military oo howlgab ah ay raadsadeen ogolaansho federaali ah si ay uga shaqeeyaan Imaaraadka oo ay ku jiraan la taliyaal dhinaca amniga internetka ah.